عقلي قديه حسوسك عسومني تداوي الموديسا موديسا تداوي الموديسا هي عاشق وكقضي عاشقا كقضي ما فهمنا نقول ما في هاي عاشق وكقضي قف كلا عقلي قديه شرد waxaan siinayaa fiweer weyn siinaya qofkii labada eray isa saara si uu bal isu saara naf yahay caashaqo ka gaday qof kale aqligeedii meel aan anigu u qaado xitaa aan ku qurxiyo ma garanayo xusuusku casuuman subhanaka ya azim wa min ayati mooy إنما وهالموليسة إنما وقتي سو كي كاسكي يمان كيب ميانو كاساري كاسكي يمان كي ميانو كابا إيو مالك روكعين نفي هاي عاشق وكاقدي قفك لعقل قدي وصدوك هاقا قدي ما فهم يدي لكن صدوك يلي كاسكي يا كاساري مانكا سبحانك يا عديم نفي هاي عاشق وكقدي قفك لعقل جديه حسوسك أسومني علده وهل مودس بل إريدا فيرش وإريدي وقطب سنة النف لدوني إن دبدمس وهستي الدوحان أركرنا نلاش عصب صدوه لكن أنا وحان وربحي هستي الدبدمسكا هستي إمرجنسيga nafta lagu badbaadinayay inay tahay nafyahay caashaq uu ka galay qof kale aqligeedii xusuus ku casuumanay cilada wehel moodis waa naf kale adoon u noqotay oo jacaylku u cabiidshay uu dhaawacay ka dhig iyo dad kale aan lahayn weeye waxay runtii naftaasi wixii soo dhaxmaray labada qof ayuun bay isku madadaalaysaa isku maaweelinaysaa laakiin cilla joogtaa marka naftiiba uu sheegaya inay naftu ay cilla joogto haaban waxaan kugu idiyay haaban ilmada cesho baan ku idhi abtanaa culay baan ku idhi عوانا تشوبان كوري waxaan ku yiri haban waa maxay cabashadu kaskiga ka saaray maan ka tireen waxaan kugu iri adiga he haban labtana culay baan ku iri xagee iska gashaa bal isku soo wada duu wixii maasal la soo sameeyay wixii ciyaarada la soo sameeyay bal hada kugu iri ku iri bal isa saar waxaan kugu yiri haban ilmada cishaba waxaan kugu yiri haban ilmada cishaba ku iri laabtana ulay baan ku iri aawana tashaban ku iri war ma Soomaali caadi amse waa maanso subhanaka ya adim waxaan oo dhamina miyaan ahayn kaskiya laabta kaskiya ka saaray maanka laba heesoo taxanaama lagu tilmaami karaya سبحانك يا عظيم ومن آياته وحان كوغو إري حقبان المدى عشبان كو إري لابتنا عليبان كو إري عاونا تشبان كو إري بل وحا في بلفيرش سيدا يسكو سارساريين وحاد مودي ساهستة إن دولكا أن لغو سمين سماواتك دوشيدا لغو ألفي وحان آمي سنة هستا قفكي نكي سميي إنا يأساقي قصدا كو سعوتو sababta qof kale kama uu samayn karo noocaas waxaan kugu iri bal fiirso waxaan kugu iri ha aban ha ala alim ha tain ha abadin ilmada ceshaban ku iri laabtana culay baan ku iri laabta culay waxa la yiraahdaa marka haanta yama dhiilaha gacanaha lagu sameeyo caanaha lagu shubtama biyaha إلا دوني دبين لول يقللون لو وناجيو أيها جدها قار كم يدو سبيشال
sida jilabka iyo geedka la yiraahdo meygaaga oo kale ayaa dabka intii la geliyo marka ay gaduutaan ayaa lagu culaa marka caanaha lagu shubaahi waxay noqdaan caana arfaya laabta culay oo dhibkii ka soo gaaray ka culay tasho oo ka tasho dhibka ku jira bal heesta miriada sidee yihiin fiir waqtigu cararaya jacaylo calhelay kajar kabago caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee waqtigu wuu cararayaa sawdiga yidhi maaha kaabaan heli xakamtu nafsak adaa yidhi kaabaan heliya waqtigan cararaya maxaa kaa galay jacayl loo caal helayni maxuu yahay bal jacayl loo caal ma garanayo waynu ka gudbaynaa taa masiishi ku dheeraanayno kajar kabagoo caloosha oo kaskiya kaa saaray maanka oo ma maxay kajar kabagoo caloosha imika tan dambana kaskiya kaa saaray maanka kajar kabagoo caloosha oo dee maxay bal hadda adigu taana isu eeg nolosha cusub soo dhawee nolol cusubi miyay jirtaa kaabaan heli waar kaaba heshay nolosha cusub subxaanahu wa tacaala ilaahay baa noloshan abuuray ma nolol cusub baa jirta ma noloshan ku cusuboo kalaa jirta oo aan soo dhaweeyaa oo yaa sidaan usoo dhaweyn kara anigu nolosha waan ku dhex abuuranahay ma garanayo nolosha cusub muxuu ka wadaa ma inan cusub yani ma garanayo nolol cusub ma garan karo nolosha cusub soo dhawey ma garan karo waqtigu waa cararayaa jacayl aan loo caal helayn kajar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawey waqtigu inuu cararayo shaki kuma jiro qofka daabaa ku socota foolxumaa ku socota xilli qofku wuxuu leeyahay jacaylka uu jilo xilli waxaa jira naftiisa uu ka fakarayo siduu u socon lahaa waa qof xilligii jacaylka jooga oo uu isdhiirigelinaya waqtiga cusub nolosha cusub soo dhawee cabdigood wuxuu yidhi nolosha cusub waa tee nolol cusub oo kale oo adduunka ka baxsan ma jirto waa runtiis laakiin micnaha uu dareemayaa nooca ay tahay nolosha cusub waxa weeye qofka marka uu guursado nolol cusub buu galaa isbeddel baa ku dhacda noloshiisa marka uu weynaado nolol cusub buu galaa marka uu jacayl ku dhaco nolol cusub buu galaa marka uu shaqaysto nolol cusub buu galaa haddaan heesta dee aan siday tahay aan la rogaynin jacayl aan loo caal helayn micnaheedu waxa weeye jacayl aan maaro loo helin ama wixii aan maaro loo waayo ama wixii ma garanaysaa dhibkoodu bato ama wixii ma garanaysaa hari waaye ayaa la caalwaan la yidhaahdaa ama qofka ninkaa waa loo caal waayey ama gabadhaas waa loo caal waayey waxaan la yaabay in micnaha bal haddii hadda caawa la yidhaahdo sida geed caleen loo ubaxa guudka qariyeen oo gooni labaha ay midabo geesteen hawaan iskartiya gunta mira aleeda oo soo gandoodo oo galka faraqa soo daray waxaa laga hadlayaa geed waxaa laga hadlayaa biyo waxaa laga hadlayaa micnaha laan soo gadoondo godka kula jirta biyaha laakiin maxay micnaheedu noqonaysaa gabar bay kusoo gabagoobaysaa gabar yaa kalgacal baan goortaan ku eegaba qalbigay gelisaa sida noocaas ay tahay oo kale wuxuu haddii la yidhaahdo ha loo sheego sida ay yihiin micnuhu ummaddu way isla dareemaysaahi nooca waxaasu ay yihiin marka nolosha cusub soo dhawee micnaha ay tahay oo dadku u fahmayaan cid kasta way dareemaysaa yahay calwaaha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calafka ceshaday guddoon way tagtee ilow way tagtee guddoon way tagtee ilow naf yahay caalwaaha noqon nasiibkana haw cadhoon
warsawdigii ka jaray weli ilaa tiibaan daba soconaaye kurbadii laga goo wadnaha kali caashaqan gabiyo kurbadii laga goo wadnaha kolku kaalintaadii waayey naf yahay caalwaha noqon nasiibkana ha u cadhoon hadduu calaf kaa ceshaday ma calaf baa wax ceshada kurbadii miyaa wadnaha laga goy kaskii miyaanaad ka saarin bal idinku tanna qiimeeya hadda waa beydkeedii waa heestii labaad beydkeedii labaad cuddo way tagtay ogow oo sawdigii adigu eriyay yidhi kaskiya kaa saaray maanka subxaanaka yaa cadiim bal waxaa ka waran naf yahay calwa oo arrintaan ka hadlayna weeye eragaas mar labaad buu soo noqday naf yahay calwa ha noqonin wax aan waxba maqlayno aniga qofkii watay baa la hadlaya wuxuu leeyahay naf yahay ha igu noqonin inaan adiga aad wax iga maqli weydo aniga aad igu jirtay ha igu noqon inaad wax iga maqli weydo nasiibkana ha u caroon hadduu calafkii ceshaday cuddoon way tagtay ogow qofka si kastood u jeceshahay si kastuu kuu jecel yahay haddaan calaf uusan isku kiin gelin ma shaqaynayso sheekadaas nasiibkana ha u caroon nasiibku qofka loogu talagelin ma helo kacugo waxaan kugu idhi kacugo gayaanka calma baan ku idhi cidaad qalbigaan ku idhi maruun cilbax baan ku idhi maruun cilbax baan ku idhi waxaan kugu idhi kacugo sawdigii waxaan helay maaha kaaba gayaankaaga calmo baan ku idhi oo sawdigii kaaba sheegay cigaan qalbiga baan ku idhi oo sawdigii kashka ka saaray wadnihiina kurbadii laga jaray maruun cilbax baan ku idhi oo cadhaga ku haysay maxay tahay waabaad ka saartaye wa min aayaatihi bal ilaahay baan idinku dhaartay waxa ay intaynu muusigtaano lacag lagu bixinayo ummaddeena iyo caawinteena waxaan kugu idhi kacuga waxa way markaad cub cirir tiraahdo hebel baan doortay kubadda la dheelayo kacugo ka dooro cugo waa ka dooro asaaga ka dooro asaaga calma baan ku idhi qof adiga micnaha kula mid ah oo nolosha kula fahmaya raadso cidaad qalbigaan ku idhi qalbiga adkee cidaad waxa le markii waxa la adkeeyo cidaad qalbiga xirxir oo sidii waa qof sooman oo kale ka noqo oo qalbiga ka xir oo ka soon cuddoon ka soon wey adkayso qalbiga adkee mar uun ciil baxa baan ku idhi ciilka hayay waxa weeye qofkii haddii qofkii sidaad u rabtay aad u weydo ciil baa kuu qabanaya waad caroonaysaa cunadaad ka go-aysaa waad soo jeedaysaa waad u caroonaysaa sababto waxa weeye qofkii intuu jacayl kugu abuuray ee markii hore uu kuu carablaalaadiyey waa hees dheele tiran oo abwaankii sameeyey ku soo kordhiyey suugaanta soomaaliyeed wax tiro badan marka waxaan leeyahay cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani hambalyo inaad heestaas dabdamiska loo yaqaano marna loo yaqaano nolosha cusub soo dhawee nad dabdamiska aan u aqaano in ay ka soo baxday caqligaaga salimka fanaanka codka macaan maxamed siciidna uu ku laray laxanku siduu u ahaa ee loogu talagalay cod macaan ee runtii dareen lana uu ku qaaday sababtu waxa weeye waxay bulshadu ay u jecel yihiin haddii kale haddaysan micno heestu lahayn lama jeclaadeen waad mahadsantihiin